dilaagii ugu halista badnaa, ugu arxanka darnaa, ugu xaasisanaa, uguna bahalsanaa qaaradda Afrika, kaas oo u dhashay dalka Kenya, isaga oo muddo 2 sano gudaheeda ku dilay 42 haween ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal, waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin dhammaantiinba. Ku soo dhawaada janaalkeena Fasoon iyo muuqaalkeena maanta. Intaanu guda gelin muuqaalkeena maanta, waxaan kaa codsanayaa haddii aad tahay saaxiibada jecel ama xiiseyso sheekooyinka serial killerska ama dilaayaasha halista ah iyo barashada xirfadaha online-ka iyo sidii lacag loogu samayn lahaa. Halkani waa janaalkaagii, subscribe saaro, nooguna soo biir. Sidoo kale gambaleelka furo si muuqaalkii aan soo dhigno oo noqotay qofkii ugu horeeyay ee daawado. Sidoo kale waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka inoo laagareyso. Laagtu waxay naga caawinaysaa in muuqaalka saaxiibo badan uu gaaro. Wixii fikir, talo iyo tusaalahana nagula wadaag qaybta faalada ama commentiska. Sidoo kale ha iloowin inaad u share gareyso ama la sii wadaagti saaxiibadaada jecel sheekooyinka ama xirfadaha aan halkan kusoo gudbino. Aan gudagalno sheekada dilaaga halista badan ee Kenya u dhashay, kaas oo lagu magacaabo Kolanisa Jamasha Kalusha. Waa 33 sano jir, u dhashay dalka Kenya, kuna noolay caasimadda Nairobi, ereyadeeda Makwara. Ninkan aan ka sheekeyn doono Kolanisa waa dilaar ugu arxanka daran adduunka. Inta badan magaciisa saddexan ma soo qaadanayno oo kaliya waxaan isticmaali doonaa maanta oo dhan magaca Kolanis. Ninkan waxa uu ku noolay caasimadda Nairobi, Makwara area. Ninkani waxa uu lahaa familkiisii, isaga iyo xaaskiisii ayay ka koobnaayeen oo wax kale u wada maysan jirin. Sidoo kale ninkan isaga iyo xaaskiisu waxay ahaayeen dad ganacsato ah oo waxay lahaayeen ganacsi. Ganacsigoodana waxa uu ka koobnaay 2 qayb ama 2 branch. Branch isaga ayaa ka shaqeynayay, branch xaaskiisa ayaa ka shaqeynayay. Ninkan Kolanis dilkii ugu horeeyay waxa uu geystay xaaskiisii, kaas oo markii haweenada ka mid ah oo isqabsadeen markaas uu gacan u qaaday, kadibna waxa uu bilaabay inuu jirdilo. Sidaasna waxa uu ku geystay dilkii ugu horeeyay bishii Agoosto sanadkii 2022. Ninkan Kolanis muddo 6 bilood ah ma uusan geysanin dil kale. Reerkiisuna waxa ay sheegeen in ay isaga dhan ugu dambeysay 2023 oo markaas sidii uu guri ugu tagay dib dambe uguma soo noqonin. Ninkan la yiraahdo Kolanis oo dilaaga halista ah waxa uu markasto target ka dhigan jiray haweenka, isaga oo ka soo ugaarsan jiray 2 meelood. Meesha koowaad oo haweenka ka soo ugaarsan jiray waxay ahayd baraha bulshada ama social media platformyadiisa kala duwan sida Facebooka, Instagramka, Snapchatka, TikTokyada ayuu ka soo ugaarsan jiray. Sidoo kale waxa uu ka soo ugaarsan jiray meelaha entertainment ama meelaha public oo ay dadka iskugu yimaadaan si ay waqti ugu qaataan. Meeshaas ayuu haweenka ka soo ugaarsan jiray. Ninkan Kolanis waxa uu dabin u dhigi jiray dumarka isaga oo iskaga dhigayo qof la haasaawayo ama shukaansanayo. Sidaas markii uu muddo kula sheekaysto qofkii oo wax badan ka ogaado, waxa uu dhihi jiray iimaw waa ku casuumaa, isaga uu ku martiqaadi jiray gurigiisii. Markii gurigiisii uu keeno ayuu wuxuu u dhigi jiray dabinadiisii waxaa ka mid ahayd qofka inuu kow jirdilo ama dhibaato oo saayid ama jug weyne oo ku dhufto. Kadibna qofkii markii uu meerdawalmo in uu isticmaalo telefonadiisa wixii lacag ku jirtay inuu ka gedisto. Kadibna uu bilaabo qofkii inuu jirkiisii cadcad u jaro. Ninkani sidaas ayuuna wax u dili jiray oo uu dhibaateyn jiray dumarka. Qof kasto ma uusan fahmi jirin sababtoo wuxuu isticmaali jiray xeelad ah in uusan qofka markii uu dilo ama jir dilo in uusan dhiigii iyo wixii inuu jawaab ku rido markii ma uusan tuuri jirin ee wax uu sameyn jiray muddo isbuuc ama 10 maalin ama 2 isbuuc ayuu wuxuu ku hayn jiray gurigiisii. Kadibna markii dhiigii wixii qalalaan ayuu tuuri jiray qofkaas jirkiisii uu jarjaran oo meel ku ridan. Ninkan Koloniska arxan daradiisii ma uusan joojinin, maxaa yeelay waxaa la sheegay bishiiba ama labadii bilbo inuu dili jiray 3 ilaa iyo
4 qofood oo haween ah sidaas ouna shabaqiisa ku soo ridan jiray ninkan ayaa waxa uu maxkamad ka soo muuqday 15kii bishii Julaayo 2024 isaga oo qirtay inuu dambigan geystay haddaba sidee lagu soo qabtay ninkan qabashadiisii waxa aaraad u noqotay gabar 24 sano jir ah oo lagu magacaabayay Rosalina Ongogo oo reerkeedii bishii June ay ku wargeliyeen booliska in gabadhoodii ay ka maqan tahay oo sida ay shaqada u aaday aysan dib dambe ugu soo noqonin muddo reerkii iyo booliskii oo raadis ku jiro ayaa reerkii gabadhani waxa la soo sheegay in god ku yaala Mkware area laga helay qof reerkiina waa ay soo baxeen waxa ay imaadeen godkii markii la fiiriyay waxa ay noqotay ama ay aqoonsadeen gabadhoodii kadibna waxa la sheegay in godkii la sii faaray lagana soo helay 9 qofood oo kale balse 9kaas qofood qofka ay yihiin ama cidoodii way aqoonsan waayeen sababtoo ah Said ayuu jirkoodii u jarjaray una jirdilayay ninkan la yiraahdo Colonist ayaa raad waxa uu noqday gabadhii ugu dambeysay oo uu dilayay kadib booliskii waxa ay baaris ku sameeyeen eeridaas oo dhan eeridii markii la baaray waxa la ogaaday oo raadkii waxa uu galay gurigii Colonist markii la baaray waxa la aqoonsaday ID-giisa ayaa lagu aqoonsaday kadibna waxa la baaray gurigiisii waxaaba laga helay waxyaalo dadkii ku noolaa Nairobi iyo guud ahaanba qaaradda Afrika ka wada yaabiyay oo ah in laga helay maxaa lahaa jirir badan qof la jarjaray dhibaatooyin badan dad loo geystay oo uu jarjaray hilibkoodii oo weliba cad ku riday jawaano ninkan kadib booliskii waa ay xireen kadib sidoo kale waxaa la sameeyay baaritaan dheeri ah ninkan ayaa waxaa la ogaaday Colonistka in gurigiisii laga helay baangadii uu wax ku jarjari jiray sidoo kale laga helay maxaa lahaa simkaaradii dadkii uu afduuban jiray ama dabinka u dhigi jiray kuwaas oo badankood dumar ahaa sidoo kale waxaa laga helay laptop iyo maxaa lahaa flash oo uu isticmaali jiray in dadka marka uu dilo maxaa lahaa inuu sawiro ka qaado sawiradaasna kadibna uu ku keensado drive-ka uu haystay sidoo kale iyo laptopka inuu ku shuban jiray ninkan arxandaradiisa waxa ka mid ah qofka markii uusan dhimanin ka hor sawir ayuu ka qaadaa markii uu jirdil sawir ka qaadaa markii uu jarjarana oo uu jawaan ku ridana sidoo kale sawir ayuu ka qaadaa sidoo kale ninkani ayaa jabtarkiisii dilaanimada 42 haweene ku soo ilaaday maxaa lahaa raadkii ugu dambeeyay oo ay noqotay gabadhan lagu magacaabo Rosalina Ongogo sidoo kale ninkani waxa arxandaradiisa ama bahalnimadiisa waxa ku sheegayso qofkii ugu horeeyay wixii ay noqotaybo xaaskiisii marna xaaskiisa ahayd marna maxaa la ganacsi wadaag ahaayeen ayuu nafteeda dhaafiyay ninkan ayaa maxkamadii weli go'aan ama wax saxan lagu xukumin laakiin ninkan dambiga inuu geystay oo uu sameeyay dilkaas waa ay ku caddahay oo waa uu geystay sidoo kale waxaa jiro linahay dad kale oo isaga la mid ah ama maxaa lahaa ku lug leh ayaa la ogaaday sidoo kale ninkani mar booliska ay ka hadlayeen ayaa waxa ay ku tilmaameen ninkan inuusan waxba ka aqoonin bini'aadanimada taasna waxa ku cadaynayso sida ninkani uu dadka u galay waxyaalaha kale oo isticmaali ninkan waxa ka mid ah qofka inuu sharootada oo maxaa la alaabta loo xirxiro inuu qof afku u xiri jiray gacmaha uu xiri jiray kadibna sida uu doono oo uu jarjari jiray taas marka booliisku waxay ku tilmaameen ninkan inuusan bini'aadanimada uusan waxba ka aqoonin taasna waxayna tusaysaa heerka uu gaarsiisan yahay dilaynimadiisa ninkan inuu yahay dilaabaha leh waxa ku cadaynayso muddo 2 sano ayuu waxa uu ku dilay 42 qof oo haweene dilayaasha ugu caansan ama xalla ugu halista badan adduunka oo ay ka mid yihiin Jeffrey Dahmer oo kale oo u dhashay dalka Mareykanka ninkaas waxa uu 10 sano ka badan ku dilay 16 qofood ama 17 qofood ayaa la sheegaa balse ninkan dilaynimadiis halista ay gaarsiisan tahay waxay ku tusaysaa waqtigaas kooban in uu ku dilay 42 haweene sidoo kale in uu caadaystay inuu wax dilo
waxaa ku cadaynayo every single month ama bil kasto waxa uu dili jiray 2 ilaa iyo 3 qofood oo haweeney. sidoo kale ninkan bahalnimadiisa waxay ku tusay arxandaradiisa waxa uu waasan jiray haweenka ilaa iyo 20 ilaa iyo 30 miyada dadkaas jiro ayuu target ka dhigin jiray, sababtoo ah nin ma dili jirin, caruurta muuse dili jiray, laakiin haweenka da'daas intuu dhexeyso ayuu dili jiray. ugu dambeyntii ninkan colonist Jamasha Kalusho ayaa qaaradda Afrika iyo caalamkaba qabsaday sida arxanka daran ama oo wax u gumaadayay ama uu wax u dilayay. ninkan waa nin halis ah, hadda keliya waa qof xukun sugayo oo waxa uu sugayaa xukunka ay ku xukunto maxkamadda Nairobi. sidoo kale ninkani waxa uu toban ka noqdaybo serial killerka ugu halista badan adduunka. waxaan ku cadaynayso 42 qof oo nin single 2 years nin ku dilay sanadiisi. sidoo kale haddaad jeceshahay sheekooyinka serial killerska oo sidaan oo kale ah waa soo badin doonaa, noogu reeb qaybta faalada. ninkani maxaa ku qiimeyn lahayd ama maxaa ku xukumi lahayd adiga ahaantaada haddii uu maxkamad ama qaadigii wax xukumaye ahaan lahayd, maxaa ku xukumi lahayd ninkani uu kaa mudan yahay in loo xukumo. inkastoo dad qaar ay leeyihiin ninkan in la dili waayo, dadna ay leeyihiin in la xabsiyeey waayo. so adiga maxay kula tahay waa ninkan bahalnimadiisa, arxandaradiisa iyo xaasinimada heerkaasi oo uu gaarsiisan yahay aad ku xukumi lahayd? intaa muuqaalka xigaa ku kulmi doono. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.